daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka nolosha cusub. Ani waxa la yiraahdaa Riyaaq. Maanta waxaan ka hadlaynaa arrimaha ku saabsan nolosha masiixiinta. Halkan waxay la joogaan Iimaan iyo Raxma ku soo dhawaada. Mahadsantahay. Raxma su'aal baan rabaa intaan ku weydiiyo oo ahaan dadka markay masiix noqdaan maxaa ku soo koraya? qofka markuu Ilaahay u yimaado oo aamino waxa ku soo koraya horta lama la koobi karo. Farxad wax kasta Ilaahay oo raba inuu buuxiyo farxadoodii wixii ayagu u baahnaayeen. Way markii qof kasta uu jecel yahay in wax ku farxo laakiin farxad ugu weyn waa marka adiga aamintid Rabbiga oo ku farxad Rabbi Ilaahayna kugu abaal celiyo inaad heshid wax adiga u baahneed. bini'aadana wax kasta oo baahan waxaan u baahnayn farxano waxaan u baahnayn waxyaalaha nolosheena ka dhiman inaan helno waxaan u baahnayn baahi badan ay iska jirto caafimaadka wax kasta laakiin Ilaahay ayadiisu wuxuu noogu cadeeyay qofka markuu Ilaahay u yimaado waxa ku soo biiray oo ugu weyn oo ku soo kordhay waxa waaye Ilaahay oo idin waxa waaye Ilaahay wuxuu leeyahay waan idin siin doonaa wixii aad u baahan tihiin oo dhan wax kasta anaga u baahan ay helina sida ay tahay hodantinimadiisa xagga Ciise Masiix waxaan wax ku helaynaa maxay tahay dhiigga Ciise Masiix markasta nolosheenu waxay ku xiran tahay ku qodban tahay Ciise Masiix marka u nimaan Rabbigu muxuu leeyahay balanqaade wax kasta aad u baahantiin waan sii doonaa muxuu nagu siinaa hodantinimada Rabbi Ciise Masiix wax aad u baahantiin oo dhan sida u tahay hodantinimada xagga amaanta Ciise Masiix maxaa lagu amaanay isku talaabta saliibku u maray anaga marba ma kala hareen anaga Ciise Masiix isla socona maalinta wax kasta waxaan ku heleynaa asaga waa anaga dambiilaanahay dhiigas la'aantiis ma socon karno markasta waa inaan hoganaa magaca Rabbiga markaan duceysanayna waa inaan magac isku duceysana marka waxaan helnay wax ugu fiican iyo wax alla wax u baahnayna oo heleynaa marka haddana wuxuu leeyahay haba ka walwalina wax u baahantiin anaba joogaba anoo joogsay walwali kartaan marka balanqaadka ugu weyn aan haysano waa inta dunida aan joogno wax kasta oo baan farxadeena nolosheena wax adig ka maqan qof kasta wax kala nooca ka maqan qof kasta wax u baahan yahay helaya muxuu ku helayaa wuxuu hodantinimada xagga amaanta Ciise Masiix waa maxaa dhacay dhiiga hadlaya dhiiga ayaa shaqeynaya wax xaqnimada nolol dhiiga waa dhiiga marka dhiiga Ciise Masiix ayaan wax kasta ku helina markaan imaano waxaan huganay xaqnimadii wax kasta ku helina hawlwalina maxaa wax walwalisay anaaba joogaba hawlwalina walwalkiin oo dhan isaga saar wax anaga dhibka anaga haysta maxaa wixii dhan aabbo adag ku dibnay magaca Rabbi Ciise waa lagu duceystaa meesha 2 3 ku joogtiin magaca Ciise Masiix ku duceystaa hawlwalina maxaa walwalkiin oo dhan isaga saar maxaa yeelay isaga dan muxuu danta nagu leeyahay inuu meel fiican nageeyo Ilaahay markaas muxuu danta naga leeyahay dankaas naga leeyahay anaga inaan beer u falno oo nagu shaqeysto marabiyo anaga adoomo muuniin anaga caruurtiisa marka lagu ma caruurta Ilaahay waxaan naqanay qoyskii boqortooyadan galnay waxaad ka wadaamiyaa walwalka wax fiican ma aha miyaa walwalka wax fiican ma waa shaki wuxuu walwal adoo wax lagu soo wada dawashi ada sidii leed naqanaysa shaki Rabbigu wuxuu leeyahay walwalina wax ala wuxuu baahantiin ay walwalkiin oo dhan asaga saara yaa saarayna Ciise Masiix dadka saartay hawlwalina wax kasta adduunka u baahanay inaan helno qoran tahay maxaan ku helay anaga ma shaqeysana waxaan ku helaynaa dhiiga Ciise Masiix oo xaqna loo dhigay marka inaan walwalna maba ahaba balanqaadkii waa haysana hadalka si loo yiri waa inaan ku taagnaana way hadalka Ilaahay wuxuu dhahay hadalka aan afkee ka sabaxo marna iguma soo noqonay u dhahay waa u shaqeynaysaa wayna tahay marka inaan walwalna ma aha waxa inaan adduunka maanta ka walwalna ma aha waa inaan ku mahad celinaa waxana la siiyay balanta haysano waa inaan ku noolaanaa hadalka Ilaahay waa inaan taagnaana qodob sida loo qoray waa inaan aaminka waa inaan nafsadaada gelisa saano Ilaahay dhahay waa qoran tahay tan inaan walwalin waa qoran tahay tan in wax kasta wax adiga aweys mala hodantinimadiisa waa wax alaal wuxuu Ilaahay haysto wuxuu Rabbiga haysto waa Ilaahay haysta kule dhaxalka dhan baa la haysta wax alaal wuxuu Rabbiga haysta aan la haysana sidoo aabaha taajir yahay aabahay baa taajir ah boqortooyada Ilaahay waa aabaha samada jooga wax asaga haysto waa haysta sababta caruurta Ilaahay lagu magacaabay hodantinimadiisa ayaa waxa lagu dhahay wixii Ilaahay wuxuu idin siin doonaa wixii aad u baahan tihiin oo dhan wax kasta maanta dunida u baahanay
waad helaysaa balan ways kelmadan dib uma naqanaysa hadalka afka ilaahay ka soo baxa dib uguma naqanayso u yiri ay u ahaanaysaa marka sida ay tahay hodantinimo waxa la qofka markuu hodan qaniya ay tahay ayuu kugu deeqayaa xagga amaanta Ciise Masiix waayo wuxuu asaga maray lagu amaanay saliimkaas maray oo yani isooseysii rabbiga oo markuu aabihi dhahay saana maraysa okay aabbo taada ahaato teydii ahaan sidaa ma agarate haa anaa maray ana ii fududahay way ana aabeeysa ay dhahay marka dhiigaas ayaa wax kas ku heshay wax aad shaqaysan kartid ma maanta oo dhan aad intaas oo salaad u tukatid intaas oo soontid intaas oo waradid lagu dhin waxa ku heshay naxariista Ilaah marka ina walwashid adduunada laga walwala ma aha walwalka waa inaad meel iska dhigtaa qofka markuu masiix noqdo naxariista Ilaah wuu helaa waaba hadiyad aab Ilaahay u siiyay naxariista Ilaahay maanta la timaada toobad keenka ad aamintid aqiratid qalbiga ka aamint afka qiratid maalintaas waaba ruuxa qaduuska hayshid waaba kula jirtaa waa hadiyad way qaf la heli kara waxa la heli kara ma qaali way laakiin Ilaahay ma baraba inaad dhibaatooyid si hadiyad oo fudud kugu siiyay waa jaceelku ku qaba dartiisa marka Ilaahay naxariistiisa waa badanta waa in lagu mahad celiyaa wax Ilaahay ku siiyay waa inaad u mahadnaqdaa adna qafka kale la qaybsataa ها ما أنت أنا وحاسة إلهي إسي ربك سانو اسمي دعاء شل دعيست ميلا اسكدي أسجان صاري كما أنا والولين ما أنا أنشكين سيدي أي وتميت وين هذا قف قال سوق أتكادو أسجنا وقعدوا إن كلمة ربي كتمت سيدو وير إلهي هذا الكيس مركو صبح تبقوا من غناي سيدو وير وين أحاطة مرخوفك كلام وكحول يسنا ومرقات فرتت مرقات فرق أنا وحفي عن صح إيمان عادي أنا ما حدا هي صح dadka qof masiix markuu noqdo maxaa ku soo koray we gain love joy and hope and even dreams no matter what you're going through or what kind of situation you're in God is always there for you and he's faithful waad mahadsan tahay hay awoodda Ciise Masiix lagu helayo waa maxay awoodda Ciise Masiix marka magaciisu waa wax cajiib ah waa nimcada Ilaahay oo dhan marka adiga aad qaadatid aamintid yani waxa qofku markuu aamin la yimaado wuxuu helayaa awood aan qof kasta iska heli karin waxa waaye waxa canaanaysaa wax alaala shaydaan kuma soo dhawaan karo magaca Rabbi Ciise Masiix hadda ku canaanatid oo waxa waaye waxaad helaysaa luqad aadan dadka kale ku hadlin تانكس لده أو يعني روح قدوسك أفهمه لكن قف من آدم كله فهم كرم على ما أنت ده كده عيسى أكو هذا الشيء تانكسك أو وحهريسا وحالي رقفك أو وحالي حداد كتاب قدوس أصلا نقول شيء وحوليه أبو يسوينك أي قاعد دونا وهدي عبان وحلو أنت وحبا ميلي دونا حداد صنع بتطلق سيه إن أكون بنت لقمياه والرماسة كوين تنكلنا وحواي روحيد وسقد يا مجع ماشى مجع مسيحي مركات ربي عيسى ديجيسة مجع ربي عيسى مركات هذا شيء نانك أكتر من مانع وإنسان وربي إنه كتاب قدوس إلهي إنه موجي قف مركو رميس لي ما على موين بدن أيال الصعن دهنا قف مركو رميس لي وحبنا الله أركا وحبا أنا كرتا روحيد وسقد وقرنت كبحر مجع ربي عيسى مسيح كبحر هذا قف كد روح وسق جرو وقرنت إنه كبح وما أتكسر كرو الشيطان كاس إنه مغله مجع ربي عيسى وأوجيه أسا أرداي صابته هذا كورا ربي ويل ساسو كلا روحي وسق جرو وعناد بالكسيري وانقرنا إن تاويل كإله أنا أنت هاي قطورنا طن فرض حتى يقطورنا مرك ويقرنا مجع سيدنا إلهي أنا وهرت كعدين أنا كتابك قدوسك سيدنا أي قرنت ماركوس لحي طبعا سيدي طبعا ساني لهذا على موين كان أيا دواس عندون أيا لص عندون كور ميسن مجعيجة أيا جيني كسار دون وحير كو أنا إرمستا على موشين أيا دواس عندون مجعيجة أيا جيني كسار دون أنا ليري كسار دون أفف عصب أي كوال وأكو على كرتا ولي فرنسا كم هادلين أما كم هادلين أف لاتين كم هادلين oo waxa ku hadlaysa ku duceynaysid waxyaalo soo socda ma wax kale ka hadlaysa waa
qof kale ma garanayo qofka ag joogo adoo wadankaa joogo qof wadanka kale joogo inuu kartaa ama qof ama afkaba qof bini aadan garanayna dhici karto ayaa ku hadli doontaa ruuxa qaduusku inbaa fahmaya afaf wuxuu yiri sidaan uu yiri af cusub ayuu ku hadli luqad cusub ayuu ku hadli doonaa marka maxaa lagu garanaya qofka markuu ciise masiix raaco awoodu oo asaga calaamooyinka oo la socon doona maxay tahay markaa ciise masiix raacid wax adigu daba soconaya oo adiga aad helaysid awoodda adiga aad helaysid waxa waaye waa ina ogaadaa inaad dadka ka duwan tahay waaye awoodda adiga iskama lihid awoodda ilaahay baa iska laakin waxaa ku heshay oo lagaaga dhigay xaq magaca rabbi ciise masiix adi laakiin adi noloshaaday awood markaa masiix noqoto awood heshe sidee nolosha isku bedeshay markaas ani haddaa xanuunsado haddii qof dariskaa xanuunsado haddii walaal xanuunsado waa marka hore markay kuu cusub tahay waaba jeceshahay inaad dhahda qof ma xanuunsanaa gacantaa saar rabbiyo magacaaga ruux kastoo wasaqa ah wax kasta dhibaayo qofkan rabbiyo magacaagan ku jibinaya inuu caafimaado rabbiyo dhaawacaaga ku caafimaado qofkan jeexitaanka dhiiga kaa daata ha ku caafimaado waa qoranta magacaaga inuu ku caafimaado rabbi ciise magaciisa kac sariirta ka kac wax kasta waa dhihi jirnay markii waa xiisaynaysaa marka adi kitaabka qaduuska aad baratid aad aragtid waxa lagu siiyey awoodda adi haysatid xoogga adi lagu siiyey magaca rabbi ciise kaga saaraysaa ruuxyada wasaqda ah abeesooyinka iyo abeesooyinka ayay qaadi doonaan abeesada dhan baaba kor u qaadaysaa oo hadday cabaan wax lagu dhinta waxba kuma naqanayana lagu dhahay iyo gacmahooda ayay saari doon dadka xanuunsan magaca rabbiga ku caafimaad magaca rabbi ku caafimaad magaca rabbi ciise masiix ku caafimaad dhaawiciisa ku bogsoonaysaa waa qoranta ruux kasta wasaq kulli rabbiyo shaydaanka magaca rabbi ciise masiix kaga bax hadda ka bax waxa waaye gacanta qofka xanuunsan saartu waa caafimaadaya haddii shaydaan ku qaldo oo wax wasaq ku siiyo ama wax qofka bini'aadam wax u dhimaya hadda aaminsantaa rabbi ciise waxba kuma naqanaysa dad badan oo saas waa la arkay haddee abeesada socotaa saa u qaadaysaa marka maxaa lagu leeyahay hadda si fiican aan u akhriya aayaddan waxaa weeye calaamooyinka ayaa la socon doona calaamooyinkan ayaa la socon doona kuwa rumaysta magacayga kuwa rumaysta magacayga yaa dhahaya rabbi ciise magacayga ayay ku rumaysta magacayga ayay jinyo ku saari doonaan afaf cusub ayay ku hadli doonaan abeesooyin ayay qaadi doonaan oo hadday cabaan wax lagu dhimanayna wax ma yeeli doonaan gacmo ayay kuwa buk saari doonaan wayna caafimaadi doonaan marka awooddaas dhan ayaa magaca ciise masiixan ku helinaa waa waxa lagu helaya waa badan yihiin maanta iyo haddaan ku noqono aayadii horta waa isfuraan waa isku xiran yihiin ayaga isfuraa isku soo noqonayo waayo ilaahay markasta wuxuu rabaa inta inuu kaa tuso wanaagiisa ma la koobi karaba marka tan awoodda ugu weyn oo magaca rabbi ciise aan ku helayno waa inaan ku cananaa ruuxyada wasaqda waa inaan haddaa wax wasaq cabtid ama wax cabtid inaad ku dhiman waa qoranta ileen rumaysadka haddaad rumaysatahay inaad qof xanuunsan haddaa gacanta saarta waa caafimaad waa qoranta marka ilaahay awooddaasuu nuujisay waxyaalaha oo bini aadanka maskaxdiisa oo loo baahay inuu ka fikiro oona yacni inuu fadhiisto aqriyo oo dhowr rabbiyow ifahamsii aniga ma aan fahmin waayo aniga maanta hadda afkay ka hadlo aan aayaddan ku sixin waxa u malaynayaan maskaxdayna kasoo alifay laakiin tan waa qoranta 2000 oo sano ka hor ayaa la qoray aayadahan laakiin sida oo hadalka ugu faham qofka ma aan inuu madaxa wax oo ka karto ama u fahmo wadnaha inta ka fahanto waa ina qalbiga ka fahanto waa ina ilaahay hor fadhiisata ilaahu gabadhan maxay ku hadlaysaa rabbi i fahamsii qalbiga indhaha ii fur aan fahmo hay'adii akhri hay'adii maxay dhigaysay Markus 17 17 ha hadda waxaan helaynaa waa ku soo laabanayna fasax yar ayaan galeynaa daawayaal hadda fasax yar ayaan galeynaa waan ku soo laaban doonaa barnaamijka nolosha cusub aad iyo aad baad u mahadsantihiin aayadii baarnaa intaan aqrisi masiix ku noqotay xafay qofka tilaabo waa ina tilaabo qaadaa We were made, created with love. lagama yaabo inaan ku degdegno It's from the flesh. waxyaalo dhibaato badan ay dhibaato badan ay keentaa dhibaato ma ku jirto meeqa ay mar ilma aabad ma wadan karo And it's kind of hypocrite because waxaad dumaysaa dadka qaarkood inay oo fahmaan marna kuma nacay marna kuma deerna mar kasta oo kula jira I felt worthless and not enough. ugu dooratay bin aadan waxna ku qaban karin fartaada jabta aad ka kabi karin
wax fiican u arkaya oo ilaahay noo haay markaas war waa intuu aniga naga reeriyo tilaabo adoo qaadisay oo ku samaynaysaa I fell, he picked me up. masiixiga ugu yaryahay Soomaaliya ee adduunkan anigoo joogna hataa mula jira daawadayaal hadda waxaan kusoo laabanay barnaamijka nolosha cusub meeshaan ku harna ayaan ka wadaynaa halkan waxay la joogaan iimaan iyo raxmo kusoo dhawaada iimaan iyo raxmo waad maasantahay raxmo aayad kale ma jirtaa noo sheegaysa awoodda dadka masiixiinta ciise masiix ku helayaan horta rabbiga mahadle waxa waaye ballanqaadyo badan wax kasta waa naloo sheegay marka waa in anaga maskaxda ka shaqaysiinaa aan baranaa aan furnaa kitaabka qaduuska qofka hadduu kitaabka qaduuska uu furin uu akhrinin yacni magac masiixi wax ma tarayo waa inaa masiixnimada qalbiga aa ku haysaa afkana ka qirataa aana akhrisaa kitaabka aa furtaa aa akhrisa haddaa fahmi weysid hata kuu adkaato waa inaa qof walaal u tagdaa aa warsata aan isla akhrino aad rabbiga ka codsataa ruuxa qaduuska qalbiga indhaha ii fur rabbiyo ma fahmin waa inaa ku celisa rabbiga hor istaagdaa tan kale oo rabbiga noogu cadeeyey waxaa waaye oo ciise ayaa u yimid oo la hadlay oo wuxuu ku yiri amar oo dhan ayaa samadii dhulka laygu siiyey bal ariga inuu marka horaaba ilaahay wuxuu dhahay waa isla socotaa hadallada ilaah waa isku xiran yihiin wuxuu yiri waxaana la yiri markasta inaan xasuusan waay inuu ilaaha dunida jecel u qabo ayuu wiilkiisa siiyey haddii maxaa kuu muuqdo marka muxuu yiri oo ciise asaa dhahay wuxuu yiri oo ciise ayaa u yimid xirta ayuu yimid oo la hadlay oo wuxuu ku yiri amarka oo dhan dunida ilaahay wuxuu yiri marka hore waxaa naloo sheegay in ilaahay jaceylku qabo dunida wiilkiisuu siiyey soo ma haddana ciisena wuxuu markhaati furay in amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka laygu siiyo yiri inta samada iyo dhulka amar oo dhan ayaa laygu siiyey haddaba taga wax aanini baray aragteen ya haddaba taga baxa oo qurumaha haddaba taga oo qurumaha oo dhan xirka dhiga oo ku baabdiisa magaca aabbaha iyo wiilka ruuxa qaduuska waxaan dhan anaa amar waxaan dhan anaa wax layga dhigo yiri laakiin idinka maxaa nalaga rabaa maadaamna waxaan nala siiyey waxaan haysano awood ku haysano rabbi ciise magaciisi oo calaamooyinku daba socdaan oo adiga magaca rabbiga jiniya ku saar waxaan dhan ku samaynaysa adduunka akhbaarkan wanaagsan adduunka taga oo ciise ayaa u yimid xirti oo la hadlay muxuu ku yiri oo wuxuu ku yiri amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka laygu siiyey haddaba taga quruumaha oo dhan xir ka dhiga maxaa waay waa inay aaminaan xir laga dhiga ayayna wax sii sheegaan oo qofkii oo la baabdiisaa magaca aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa qaduuska marka intaa wax kas lagu siiya rabbiga wuxuu leeyahay waa in dadka ay baxaan keligaa ina haysid nimcada ilaahay keligaa ina la fadhiisad maaha haleluya nimcada waa igu dhan tahay wax kasta ilaahay waa isiiyey waa i barwaaqeeyey jannada albaabka waa ii furan tahay jidkiyaa aan taaganahay runtii ku taaganahay nolosha weligeeda ku taagan aniga ilmeyga igama badna ma aha waa ina qofka walaalka la qaybsataa waa inaad baxdaa albaabka kugu dhegan ka bilowda ilaa adduunka intaa gaaraysa qofka qurumaha dhan aada qofka hadduu baqaayo intuu ka helaa magacaas geesnimo awoodda geesnimada waa awood ilaahay siina waa inuu baryaa waa inuu waa loo duceeya xirta dhexdeeda isku duceynayso waa ina dadka walaalaha waa inuu tagaa oo asaga oo la joogo la duceysto meeshu asaga oo wax ka dhageysto meeshu asaga ka hela dee akhbaarka casharka ka qaato kaniisadda meeshu ka tirsan yahan ka wadaa kaniisadda ama gruubka asaga la duceysto asaga ka xiran yahay waa inuu dhahaa war aniga fulayaan ahay wadnahaba bitaaganba oo aniga qof kama baqaayo laakiin sidayda cabsi dadka isku mid dadka ka baqaynaa jiro laakiin hadalka dhibku ah xishood iyo dabeecadda bini'aadanka kala duwan aniga waxaan si kala ku ah imise oo dad ilaah u shaqaynaya iga marqaad furay aan maqlay kaniisada ayagoo ka hadlaya markaa rabbiga u imaanayay waa aniga saasa un gariirahay hadal marka meelaan soo inaan suuxaba ka baqaya kelmadda ugu horeysa markaa dhahay inaan soo cabsi darteeda iyo gariir laakiin maantana 20,000 30,000 oo qof inay hor istaagaan ayay saas ugu wacdinayaan farxad kalsooni yani inay ku faraxsan yihiin rabbigooda inay iimaan ku qabaan inay farxaan ay badboodaan ay meesha dhanba ay yani ruuxa qaduuska ka dhex shaqaynayaan
marka waa inuu baryaa oo walaalkiis baryaa oo warniyo ii soo duceey ani ataa sida aad u sheegtaa rabaa inaan u sheego waa loo baahan yahay inaan badano waayo beerta haweenta shaqaalaha waa yaryahay wax badanana sugaa beerta haweenta shaqaalaha waa yaryahay marka waa inuu bartaa inuu duceysto walaalaha ii duceey dhaho oo shaqadan la wado waay wax loo baahan yahay waa la sugaaya waay qof kasto waa loo baahan in intaad joogto 100 jeerkeeda 100 jeer lagu dhuftaa loo baahan yahay ama ka badanba inay dadka maanta ay wax sheegaan laakiin dad qaarkood jira oo keligood isku haasta anaa badbaad ana shaqadeedu waay qof kale shaqadiisa ma ahan qasam ya inta sheego laakiin waxa dhahaysaade asagana waxa dhici karta hadiye badan ay jirto in hadiye kala haysto soo dhaweynta kaniisada inuu ka shaqeeyo shaahi kariyo qofka inuu horta meel haysto waa fiican tahay believe on wax la sameynayna waa laga fiican yahay marka waxa waaye waa inuu wax sameeyaa waayo asaga wax sameeskaas waa ku koraya waa ku adkaanaya bulshada ku jiro qofka kaniisada shaahi oo kariya kafeeyga oo kariya alaabtooda diyaariya waxyaalaha la cabo oo inta waqti lagu sugo ama inta shir ka bilaabmaya ama dad oo wacdiga aadaya waa inuu u hoos fadhiya oo u noqdaa waalid u duceynaya taasna muhiim waa guriga joogo dadka shaqeynaya oo dibadda aaday oo meelaha wadanka ka baxay oo shaqada aaday waa inuu duceeyo anaata guriga joogo dad badan oo Afrika aaday oo ka shaqeeya marka xasuusta ama marka maqlo ama marka arko qalbigay soo dhaco oo duceeya rabbi oo barakay qofkaas aduu ku dhibtoonaya qofka aduu meesha ku jooga qofka aduu gurigiisa iyo noloshiisa ilmihiis kaaga tagay oo wuxuu u tagay meeshaas inuu adiga ku adeego oo adiga nuurkaaga iyo aqbaarkaaga wanaagsanay way balanta asaa noo diray balantaadi inuu qaaday oo meesha la tagay la fadhiya oo ruuxida wasaqda ka ilaali oo rabbi wuxuu cuno wuxuu cabasi barakay meeshu maray rabbi oo agtiisa meel malaa'igaha ku ilaali kaasna shaqo kala waay waa shaqo fiican gurigaaga joogtaa walaalaha u duceynaysa barnaamijkii hore waxa dhahday jaceyl waay qofka duu akhbaarka wanaagsan qofka uu sheegay waa jaceyl waxa waa jaceyl waay ha fiirin qofka wuxuu ku dhahay waxa fiirisa in asaga wax u sheegtay waxa laga yaabaa 5 sano ka bacdi inuu xasuusto waxa laga yaabaa 2 maalin ka bacdi inuu fikradiisa bedelo waxa laga yaabaa inuu ku mahad celiyo qof kale u sheego qof maalin la kulmay waxa maqli jiray dada wuxuu ka haystaa laga yaabaa wax oo qalad alla masiixiinta wax qalad laga dhadhacsi laakiin markuu arko adi wanaagaaga oo niyo waligay qaladaba ka isticdaan waa maxay dad fiican waay saana u yiri oo niyo wax aqli galaayo aniga qofkan ka maqlay qofkii aad ma baqaan meel u raadi bala aan soo raadiy maanta kitaabka qaduuska ama meelaha computerka inuu ka raadiyo oo helo meel oo laga dhigeysanayo akhbaarka wanaagsan 100 qof asaas iga marxaati fure dad badan waxa arkaa aniga in ayaga masiixi la hadlay in yimaadaan rabaan oo aniga markay wax raadiyeen ka soo dhax baxay meesha maqleen ee dheen wow oo geesnimay arkay wow wax dad Soomaali masiixi ah jiro oo ku farxay oo geesnimo ku soo galay oo baranaya iska waxa aad horta aaminaysid waa ina ogaataa ma aha laguma wicin xarka xiran laguma wicin dhagax laguma wicin bir isku talaab lagu xiray waxaas islaabtan wax la caabudo ma waa xasuus waay saliibka Ilaahay ku maray boqorka wuxuu taagan yahay aabaha hortiisa midigta aabiisu taagan yahay waa boqorka boqorada ma aha in oo alwaax yahay dhagax yahay waa kanisa Ilaahay wuxuu ku leeyahay kuwaas waa wax Ilaahay aqoonin laakiin dadka qaarkood waxay u maleeyaan akhbaarka wanaagsan qofka la sheegay inuu asaga faa'iiday laakiin runtu waa jaceyl dadka u qabaan waxay u sheegayaan qofka kale intuu badbaado soo ma ah akhbaarka wanaagsan adle wax lagu sheegay ma asaga shaqadiisu wata waa fartiintana loo diray waxa la yiraahdaa taga quruumaha oo dhan xirka dhiga oo ku baabdiisa aabaha iyo wiilkii ruuxa qudus ma asaga ka dambeeyay taas waxa ka dambeeyay jaceyl waay jaceylka waa jaceylkii aabaha wiilkiis u qabay aabaha dunida u qabay oo wiilkiisii wiilkan anaga nagu amray waa jaceylka da ogeysa adigu ina u sheegto adoo qalad u fahmi asa u fahmi waa ina ku farxsanaata haduu ku soo dhaweeyo haduu ku soo dhaweyn dib ma jiro dhulku nabad inuu ahaado rabbigana wuxuu yiri waa ina nabad ku wada noolaana waana muhiim qof kasto oo dunida ku joogo inuu akhbaarka wanaagsan helo iimaan maxaa malaysaa dadka masiixiinta maxaa fiican intay ogaadaan Concerning this topic, there is a Bible verse. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. waad mahadsan tahay
adi rax marta inta noo sharaxday ayadaas ها ومهم وهرتا مرة دي الوو بلنقاضي أو أنا أو آيدي أنسي وضوح على وير أنا أمرنا لسي وإلى مركون واحد نبني سي واحد كستنا لسي واحد معك كستنا لسي وأودنا لسي ما يعيش واحد كسار كرنو أو يعني قاعد صار كرنا ضد كودعين كرنو أو واحد كستنا نصور تجلس إن ما يعيش كوسمينه يا هذا المعير هذا أنت أصلا مقشين وإنا بحدان قرومها تقدان أدتك وعديسان أتكون بابديستان أبها ويلك يا روح قدوس كسمع أو بر إنا دوران معله مرك أنت صبرتان قفكو ما هاي إنا بس إلى محل ودا مرك أنت سلبابديستان ما بريسا أو بر إنا دوران وحول بقو عن إذنكو أمري وإنا وحكلا سمينين وإنا قفكو وشكتا وحسميسا وحي هذا لو أمر وين سمسا لو ما دين ما أنت مسيحي ناخذ هاللويا ولو بابديسي يس حافظ يا تقضي شاكد دوالن تاي معها وإن وح على الوحي لو وين سمسا غير الشدي تاجناو كر كتاب قدوس آخر أو بر إني دوران وح والبقو عن إذنكو أمري أو بل إيك حد يجور أيان إذا لجوا حتى إلى وقت لما هبقينا إلا إن ماتك أنا وأنا لسه من عدليناي أقولني من يجي تجاي يا تذكر الشيء لكن واحد قلط وحيالها حاجة جرك عادنا قدوس نمك وشقية وهي أسأل وحيل أقولني من يجي تجاي أنا وبحيا وحما نديانا لكن روح قدوس كان يصدر عليها مرك واحد قلط هسميننا لكن وإن وحاني أنا بري وإن سميسان كنت أجناتان مرك ربي يقول ربا سو أسأل قدوسنا إن قدوس نقونه ما إن شكينه ما إن الله بقلبي لنقونه وإن أسكن حريصنا نحدنا وإن كان كلا أو ضدك أنا أتآمن كينه سناتا وإن الله دخلنا شرفه وإن تصنع وناجة كتاب مرك أنا كتاب قدوس وأنا أسام وجنينا مرك أنا ضد في عنه ده بعد أنا سمينا ده بعد مسيحي كلا وين أعطى سو أسأل قدوس وهانا وإن أسألنا دقن كينا وحين دن ما إنا ببودنا يعني واحد سماي معها هذه ولا صعي وحك صب بعد مقديا كصب نور كاتمت ما إنا دمانت نور كي مقدم مسكو إيمانا يعني ما إنا وين نبض لقى هلا وين درس كاحترامتها وين ولالك احترامتها وين أذكر نبض كهيلا وين أسف عن وجهي أتاي أو مرك هذه وناقة الأركو كتاب كان قدوس إنه نظيف يلا أي قصة وين أركاين ضد المسيحيين تيين ضد وين أنا ضد بدنا صار ضد المسيحيين قبل سان سمي وحي أنا سمي لي يعني سمي ما سمي لي وإن كل قنتا وحي لو بري وإن إلى لسه ما عربية وأذن كل بين شيء أو كوح شيء أذن قدرن أذن كقادن وأنا كنت أجنادا أفكار آمن كاجا إن قلبي وحكي آمنت أفكار وحكي قرأت تاسوا صح لكن ما حد أمر صدقك مسيحيين توجو بدن صار مو دقبان ها بدن وارك ربي قام كفرح سنة هاي آد يعني وحيالها مرايا هذا وعد سنة أنا ودن بآد في عينين أنت كان أيق عتوا إسوقين وإس لسان أو حوا إسكو شيئان تاسنو حلو باهي هواي وأنا وضينا أنتي وذكرنا وأنا يعني أنا كلي أنت عم بغلو مسيحيين Soomaaliyeed maxaa u maleysaa waa maxay waxa ugu adag cabsida ugu adag runtii aad dad baqa waaya dad badan masiixi ataad ogahay oo ani baqaar aad aan bartay oo waligay misdheeyeen laakiin kor iska igala socdeen ixtiraam iyo sharaf isku hayn mar dambe maqlay waxaan arkay edebtooda akhlaaqdooda markii dambe ani ma ogeyn ayaga ii ogaa laakiin waa kastooyar ma rabaan inay shaac bixiyaan ma rabaan inay banaanka yimaadaan dadna dabeecad ma ka tahay ma ogi dadna waxay ka tahay yani ma raba inaan dhaxgalo laakiin badanaa kitaabka aniga waxaan raacayaa kitaabka quduuska haddii lagu dhahay dad kortooda iga markhaati fur haye waad mahadsantahay oo soo laabanayna barnaamij shaash kala soo socdaan hadda barnaamijkan intan buu ku egyahay daawadayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadda barnaamijkan intan buu ku egyahay laakiin waan ku soo laaban doonaa barnaamijka nolosha cusub emailkeena waa kanaan la soo xiriira aad iyo aad baad u mahadsantihiin